Assalaamu calaykum. Kusoo dhawaada aqoon doon channel. Muuqaalkan maahan mid aan oga hadli doono cashiro ku saabsan muuqaal sameynta, dhisidda website-yada, nashqadeynta iyo muuqaaladii aad hore inooga barateen. Sababtoo ah intaasoo dhan intaynan ka hadlin waxaan u baahannahay inaan si fog u eegno mid ka mid ah caqabadaha ugu weyn ee derbiga u ah ka dhabaynta riyooyinka aan ka leenahay nolosha. Mana ahan qaabka aan wax u barano ama aan isu diyaarino, balse caqabadan dhabta ah ee nolosheena sii burburinaysa waa balwadda social media. Runta aynu ka hadalno, dhammaanteen waxaan la qabsanay oo aan balwad ka dhiganay isticmaalidda aaladda social media. Haddii aad rabto inaad dhiiranaato, haddii aad rabto inaad dunida wax ka beddesho, haddii aad rabto inaad noqoto arday xusid mudan, kaliya iska horleexi caqabadahan horyaala waddadii aad ku gaari lahayd guusha. Balse haddii ay tahay markii kuugu horeysay ee aad soo booqanayso channelkan, fadlan subscribe dheh oo taaba gambaleelka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee hela muuqaaladeena. Haddii aad ka mid tahay asxaabteena, fadlan like saar muuqaalkan si uu u gaaro asxaab badan. Mahadsanid. Aan isla fahamno shanta qaab ee uu social media u burburinayo nolosheena. Haddaba qodobka ugu horeeya ee aan rabo inaad ogaato ayaa ah qodobka ugu muhiimsan. Waana xiriirka ka dhaxeeya la qabsiga social media iyo caafimaad darrada ku timaada maskaxdaada. Daraasaad badan la sameeyay ayaa lagu ogaaday in social media laga dhaxlo xanuuno maskaxda ah, kelinimo, walwal iyo walbahaar iyo in kale oo badan. Aaladahan social media loo adeegsado waa aalado aad inoogu hareereysan oo aan si fudud ku gaari karno, waana kuwa caqabad ku noqday shaqooyinkii aan qaban lahayn, sida inaan ka shaqeyno assignmentskii loo diray, shaqooyinkii gaarka ahaa iyo in kale oo badan. Intaynan u gudbin waxaan ku daaweyn lahayn xanuunkan social media, aan fahamno in caqabadan aysan ahayn mid aan iska indha tiri karno. Si daacad ah aan uga hadalno balwaddan social media. Imise saacadood ayaad ku bixisaa isticmaalidda aaladan social media? Imise jeer ayaad eegtaa telefoonkaaga si aad u hubiso wax fariina inay kuu soo dhacday? Imise jeer ayaad joojisay shaqo aad gacanta ku haysay si aad u eegto fariimaha cusub ee kaaga soo dhacaya aaladahan social media? Qodobka labaad, la qabsiga aad la qabsatay social media waxa uu sababayaa in uu wax ka bedelo qaab dhismeedka maskaxdaada. Fariin walba kuu soo dhacda, maskaxdaada durbadiiba waxa ay bilaabaysaa in ay furto fariintaas si ay u ogaato. Waxaan ku jirnaa xaalad falcelin ah oo aan mar walba sugayno in fariin cusub ay inoo soo dhacdo. Waxaan mar walba refresh dhahnaa pageska aan adeegsano si aan ula socono boostiyada cusub ee la soo dhigay aaladahaas. Sidaa darteed waa inaan aad uga taxadarnaa isticmaalka aaladahan, sababtoo ah waxay wax ka bedelayaan qaab dhismeedka maskaxdeena. Qodobka saddexaad, balwadda social media ayaa sababtay in waqti badan aan ku lumino isticmaalka aaladahaas, kadibna aan ka cagajiidno shaqooyinkii inoo yaalay. Waan fadhiisanaa, kadibna waxaan eegnaa Instagram, Facebook, TikTok, YouTube iyo aalado kaloo badan. Halkaasna waxaan ku luminaa saacado badan. Qodobka afraad, balwadda social media ayaa sababtay aaminaadda waxyaabo aan jirin oo aan ka aaminay nolosha. Waxaan nolosheena la barbar dhignaa dad aan ka daawano social media, balse inoo soo bandhiga muuqaalo jiliin ah oo ku eg muuqaalkaas kaliya, balse aan ahayn noloshooda dhabta ah. Ugu dambeyn, aan u gudubno qodobka ugu dambeeya oo ah inaan falcelin ka sugno intana la midka ah ee social media balwadda u noqotay. Islama barbar dhigi karno asxaabta dhabta ah ee aan haysano iyo 30 like ee aan ku helayno 30 ilbiriqsi gudahood. Mar walbana waxaan sii raadin doonaa falcelin intaa ka badan. Haddaba sideen uga gudbi karnaa caqabadahan aadka inoo saameeyay? Ugu horeyn, arrinta aan sameyn karna ayaa ah in fariimaha inoo soo dhaca aan disable iska dhahno ama aan iska joojino marka laga reebo kuwa gaarka ah ee muhiimka inoo ah. Sidoo kale, marka aad shaqaynayso ama aad wax diyaarinayso, iska fogey teelkaaga si uusan kuu mashquulin. Arrinta kale ee aan sameyn karno si aan caqabadan uga gudubno ayaa ah inaan follow dhahno dadka aan wax ka faa'iidi karno oo aan dhiiranaanta ka heli karno. Kuma lihi social media ka guur, balse waxaan ku leeyahay aad uga foojigno balwaddan khatarta ah ee saameynta fog ku yeelan karto aayahaaga dambe. Isweydii, ma waxaad u isticmaashaa aaladda social media sababtoo ah dad badan ayaa isticmaala, mise waxaad u isticmaashaa inaad ku gaarto
yoolka iyo hadafka aad ka leedahay nolosha. Noqo mid wax sababa ee ha noqon mid la saameeyo.